Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Maalmahan diyaaraduhu cirkaasi ayay ka soo dhacayaan Mareykanka. Diyaarad yar oo 5 qof ay saarnaayeen isla markaana maanta duhurnimadii abaar 9 saac ka soo duushay Lancaster, Pennsylvania oo ku soo socotay Springfield, Ohio ayaa markii ay duushay oo daqiiqada hawada ku jirtay pilotkii uu dib u soo wacay airportka gaar ahaan towerka diyaaradaha laga hago markay soo degayaan iyo markay kacayaan. waxa uu sheegay albaab inuu furmay sidaas darteed uu doonayo inuu si degdeg ah uu dib ugu soo laabto. Soo laaba ayaa la yiri. Markaas kadib xitaa wuxuu yiri waa asaga iyo xiriirkii ka dhaxeeyay towerka ayaa xumaaday maxaa yeelay wuxuu yiri hawo badan ayaa soo galaysa diyaaraddu markii hawada sare ku jirto oo albaab uu furmo hawadu markay soo gasho macnaha waxba la iskama maqlayo. Markaas kadib xiriirkii ayaa go'ay. Diyaaraddeena waxay ku dhacday meel ama guryo dadka waaweyn oo markay duqoobaan lagu hayo meel u dhow oo parking looda baabuurta la dhigto ayay diyaaraddii ku soo dhacday. Holac ayaa qabsaday. 5tii qof ee saarneed dhaawacyo halis ayaa soo gaaray. Isbitaalada ayaa loola kala cararay. Dhaawacyadoodana waxay u badan yihiin gubasho iyo markii ay dhulka ku soo dhacday jugtii diyaaraddaasi ilaa hadda lama ogo xaaladahooda sida ay kala yihiin. Kooxaha debdemiska iyo sidoo kale ambalaasada ayaa isla markiiba booliisku goobtii soo gaaray. Amrada guryihii dadka waaweyn lagu xanaaneynayay waxba ma aysan gaarin laakiin baabuurtii parking lot-ka tiilay ilaa iyo 5 baabuur camal waa ay gubteen kuwa kalena waxyaabo kale ayaa soo gaaray. Haddaba maxay yihiin sababaha diyaaradahan ay hawada uga soo dhacayaan 3 bilood ee la soo dhaafay January, February iyo March oo hadda ku jirno ku dhawaad 5 diyaaradood ayaa dad ay ku dhinteen oo soo dhacay amaba kuwa kale ayaa sidoo kalena iyaguna cilado ay ku timid. Marka arintaasi maxaa loo sababeynaya waxa la leeyahay air traffic controlska kuwa diyaaradaha hago oo yaraado iyo xitaa Elon Musk iyo waaxdiisa Doge ay shaqaale fara badan shaqada ka ceyriyeen ayaa loo sababeynaya iyo sidoo kalena cilado diyaaradahaasi ku imaanaya. Marka diyaaradan waa tii ugu dambeysay inkastoo hadda 5tii qof la leeyahay waa dhaawac dadkii dhulka saarnaa waxba ma aysan gaarin marka laga reebo baabuurtaasi ay ku soo dul dhacday oo parking lot-ka yilay. Laakiin haddii ka waran guryahaasi dadka waaweyn lagu xanaaneynayo ay ku soo dul dhici lahayd khasaare intaasi ka badan ayaa ka dhalan lahaa. Pennsylvania waxaan ognahay sidoo kale Philadelphia diyaaradda inay ku soo dhacday horaantii bishii February 7 inay ahayd aan u faleynayaa 6 qof oo saarneed iyo qof dhulka jooga ay ku dhinteen. tii Washington waan ogeyn labadii diyaarada isku dhacday. Toronto, Canada waan arkaynay. Alaska sidoo kale diyaaradda ku dhacday 10 qof ayaa ku dhintay. Marka maalmahan diyaaraduhu cirkaas ayay ka soo dhacayaan. Arrintaasi waxay tahay arrin hadda FAA-du ay sheegeen in baaritaan ay ku sameyn doonaan sababta ay diyaaradan u soo dhacday, maxaa sababay albaabkaasi inuu furmo. Waxyaabahaas oo idil baaritaan ayay ku sameynayaan. Waan arki doonaa waxyaabaha ka soo